الرحمن الرحيم. أولاً وحمد علينا يا أمد الصوماليات خاصة أمد الرجال. وحن عبارين إن هذا الكسر يري ملاحظ هراء أو سريس دولة كجبلان أو أي كل شيء هيان إذا ماضي قرن كصوماليات إن أي أهيان إذا مو أيجو أيليهين أو لوكلا هم كان هنوديين أي دهين أي عسيد وكلا أفلقادو وجستين ملاحظ قرن كصوماليات دولة أندرس كنهاية ولا الله نهاية دولة إثيوبيا وحس وحنا مدل قابن كرنامها هذا ريال وحنا لنا الشري وحل حكومي وملاحظ الله وحوي شعبك يعيدنك Soomaaliyeed dhulka lagu soo xukumayana dhul shisheeye maana waa dhul Soomaaliyeed hadii adinku aad noqoteen niman maxal dhihi jiray taariikhda iyo hogaankii aad ku fashilanteen waxaan idin leenahay arintaas anagu oo ma dul qaadanayno haalina kama nihin waxaan nahay shacab iyo ciidan badad isku duuban shalana ciidankan waxa hubka siiyay oo juhdiga ku bixiyay qaran Soomaaliyeed bay ahayd ra'iisul wasaare wuxuu ahaa maxal dhihi jiray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddana asagiiba madaxweynaha qaranka hal qori iyo hal bistoolada oo ciidankan aad ku darsateen ama maxal dhihi jiray Jubbaland ay leedahay ma jirto hadii adinka dawlado iyo dana kale oo shakhsiyaad aad u durbaantumaysaan qurashina ku raadinaysaan هذا الرجال هذين كان نفسي ريسكي كجرو annagu marka waan garanay waan fahnay aqliga meesha yaalo iyo aqliga laga shaqeynay waxaan diyaar u nahay Jubbaland cusub waxaan diyaar u nahay sida ay dawladdu wax u wado aniga oo ku hadlaya magaca gobolka ahna xubin kamid ah maamulka gobolka ahna afhayeenka gobolka waxaan mar labaad cadeynaynaa mar saddexaad cadeynaynaa fikirkeenay aan shalay idin kula soconay walaalayaal waan kala noqon annagu nicina ha aytamina ha u gafina dawladda walaalaha nahay Itoobiya oo juhdi badan iyo dhiig badan iyo maxal dhiig jiray dhimasho badan ku bixisay dhulkan kalena diriraysa argagixisada shabaabka garab hasiinana nimanka argagixisada oo shabaabka waxyaabaha ay ka hadlayaan arrin ka leenahay ka waantooba walaalayaal ma in qabato inaad anaga maanta nagu tilmaantaan dad la kala caarsanayo waxa kaloo aad oo la yaabanayo oo sumcad xumo ah oo qof weyn oo mas'uul ah sumcad xumo ku ah intaas dad soo xukumay in qarankii madaxdiisa uu ku tilmaamo dad hoose oo liito oo maxal dhigi jiray bahalka aan maamul goboleed asaga oo sheeganayana oo iska dhigay nin maxal dhigi jiray sida qarankii u hadlo taas waxaan raali ka nahay ma jirto ciidankay maxal dhigi jiray sharafta lahaa ciidanka dawladda Soomaaliyeedna waa kana waxaan u digayaa kuwa ayaga la fikirka ah kolba dhinac maxal dhigi jiray wararka ka soo qaadaya ciidamada kala furfurayo maamulada sheeganayo waa u digaya waa digniin ka waantooba ciidamadan banaanka kala kamera faraha kala baxa waa ciidan qaran Soomaaliyeed dawladooda u taagan yihiin qarannimadooda ay sheeganayaan waxay u hiiliyeen qarannimadii waxay u hiilinayeen dawladnimadii waxay ka hiiliyeen dawladihii shisheeye ee Soomaaliya burburkoodii iyo dhibaatadooda qaybta ka ahaa arintaas ayada ah waxaan leenahay ka waantooba adinkana in badan waxaan u mahad celinayaa geesiyaasha sharafta leh ee juhdigooda iyo dhiigooda iyo saaxiibadooda ku waayay halgankii dheeraa ay ka soo mareen shabaab waxaan leenahay waxaan u taxsiinaynaa raggii hore ee ku dhintay halgankaas asaga ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun oo walaalaheen waan garab taagana taariikhdooda ma noqon doonto taariikh madow insha Allah ta'ala annaguna waxaan nahay kuwa maxal dhigi garab taagan raggii walaalahooda ciidamadoodii qarankoodii una taagan isbedelka cusub ee maxal dhigi jiray ciidankan wad u joodaan maanta sharafta iyo haybada meesha ka muuqato in marka shakhsi uu yiraahdo qalabka noo dhigeen qalab uu dhiibtay ma jirto horaan uga soo hadalnay shacabka waxaan leeyahay oo ugu baaqaya adeeryaal garab istaaga ciidamadeena in rag aad moodaysid drug dealer ah in ay kolba maxal dhigi jiray shacabka ay war la soo dhaxardaan ay wax u sheegaan waxa ka muhiimsan in dadku isku tashigana muhiim ah Soomaaliya noolaato Soomaaliya guulaysato Soomaaliya hay israacdo ciidanka xoogga ha cadow ha jabo sabab ha dhaco dawladdiidka ha dhaco ma santiin oo dalaalka mataqaanayda Kenya daba taagan haddii mataqaanayda dawladdeena haddana ee kale dadka dalaalka ah oo shalay dadka shacabka dhibaateynay oo Kenyaatiga dalaalka u ahaa haddii haddana dadka saraakiisha la soo direen dadka dalaalka ay soo walba waa haysatay waxa dawladdeena u sheegaynaa marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba annaga dalaalintaas isma fiicnin inay saraakiisha Soomaaliyeed ahayd oo dawladda noo soo dirtay qoladaas noo imaan karta waan jecelnahay dawladnimada raacsanahay magaca dawladnimada taageersanahay nabad iyo nolol taageersanahay inta nafsadu nagu jirtana nabad iyo nolol baan ahaan doonaa Somalia 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 أنا ودل كيجا بربر ورما بير كي تاعن Somalia على كان بلوغا وبركولن كنا
khayraadkii baddeenana hadday boonta guranaysa bacadweyn iyo goldogob taniyo beledka gaalkacyo burca iyo sanaag iyo taniyo buuhoodle burca iyo sanaag iyo taniyo buuhoodle berberiya hargeysa iyo taniyo boosaaso beledweyne balcad iyo taniyo buurina banaadir beerihii afgooy iyo taniya buurhakaba bakool iyo baydhabo taniya baardheere bu'aal iyo kismaayo iyo taniya gedab bannaankeeda beled xaawadoolow taniya beledka luuq buundada afkeeda iyo bartamaha magaalada khiyaanada hadday nagu bannaysteen calankan buluuga waa barkulankeena soomaali baawur bay lahayd berisamaadkiiyo boqor baa xukumi jiray ina siyaad barre calankana buluug buu ahaa baddaa loo ekeysay cirka barihiisii 100 shir haddaad wada gashaan oo la isku baran waayo badhaan arag haddii la isu yimid ood kala boqoshaan wallaahaan lagu kala bahayn calankan buluuga waa barkulankeena